challenge-gan waa challenge aan doonay 30 maalmood qofka dhalinyarada ah ee wax bartay ee xirfadaha yaqaana ee aanan shaqeynin in uu isku dayo kulay gurigaaga joogtaa ama meelahaas afalisa oo ka sheekeynaysaa waxaan ka doonayaa 30 maalmood ee soo socda in aad isku daydo challenge-gan sidoo kale challenge-gan ay idin sheegay isagoo qoran oo post ah waxaan soo gelin doonaa comment-iga koowaad marka halkaas baa ka soo akhrisan kartaa si marka aad u hesho xogtaan oo qoran oo marka step by step aad raaci karto qodobka koowaad ee aan doonay challenge-gan aan kula wadaago waxa weeye in aad isku daydo shaqo kasta oo aad aragto inaad xareysato isku day maalin walba in markay u yarta aad hal shaqo xareysato soo shaqooyin waxaa jira xirfadaha qofka laga doonayo ay yihiin xirfado marka qofka uu diyaarin karayo ama general ah soo xirfado qaar waxaa jira qofka loo baahan yahay inuu takhasus ka haysto sida haddii ay noqoto caafimaadka oo kale ama engineering-ka kuwaasi ma aha kuwo lagu degdegi karo haddii digriigooda ama shahaadooyinka haysato okay way laakiin haddii kale waxaa jira xirfado aad loogu baahan yahay ee shirkado inta badan soo xayeysiiyaan waxaa ka mid ah xirfadaha qofka inuu salesman noqdo wax iibiyo kale marketing oo kale xitaa xirfado waxaa jira computerka la tacalluqa oo aad diyaarin karto muddo kooban aad ku baran karto isku day xirfadaha inaad barato xitaa sida computerka basic computerka oo kale graphic design oo kale xitaa baran kartaa inkastoo waqti uu kugu qaadanayo isku day marka shaqooyinka generic ah ee aad kala raadiyay in shaqo kasta xareyso tusaale imika jaamacad caafimaad baa baratay qasama inaad caafimaad shaqo ku saabsan una sugto isku day hadii meherad laga doonayo qof salesman inaad xareysato hadii marketing la doonayo inaad xareysato sababtoo inta badan shaqooyinkaas oo kale waxa laga yaabaa training qofka in lagu siiyo oo marka shirkad walba ay qaab gaar ah ee marka ee waxaan ay rabtay u iibiso laakiin shirkadaha qaar laga yaabaa hadii tusaale ahaan cashier noqoto kale meel baa lagu fadhiisanayaa qof baa lacag ka qaadaysa adeeg baa u furaysa waxa laga yaabaa training-ka shirkadda inay si gaar ku siiso oo marka system-koodu uu gaar u shaqeynayo marka isku day qodobkan koowaad in aad xareysato shaqo kasto oo aad xareysan karto qodobka labaad waxaan isleeyahay waa kan ugu adag ee marka ugu muhiimsan challenge-gan aan kula wadaagayo waxaan ka doonayaa bisha soo socota ama 30 maalmood soo socda wuxuu ka kooban yahay 4 isbuuc soo 4 isbuuc waxaan ka doonayaa 2 maalmood oo kamid ah inaad ugu tala gasho in magaalada soo dhex wareegto magaaladaadii aad joogto maalinta aad baxayso ama isbuuca 2 maalmood aad baxayso maalintii waxaa soo qaadanaysaa marka uu yartahay 20 koobi oo CV-gaaga ah waxaad ku soo dhexridi doontaa marka envelopes aad dusha kaga qorto magacaaga waraqahan soo qaado magaalada shirkadaha ku yaala ee ugu waaweyn adigoo meelaha centerka magaalada faras magaalaha inta tagto ku soo dhex wareeg shirkad walba waxaad iska dhigtaa qof labiskiisa soo hagaaji soo markaa si fiican soo labisato xitaa xalaga albaabada qaarna laga celin soo labiso si qurux badan soo labiso timaha soo feero ama soo shanleyso soo yara carfi adigoo markaa qof professional u eg soo bax deeto waxaa isku daydaa marka inaad raadiso xafiisyada HR-ka xafiis walba HR tag waxaa ku tiraa nin xirfadaas leebanahay maxaa idinka caawin karaa I know qodobkan dad badan baa ka soo celin doona laakiin isku day adiga waa lagu diidi doonaa meelaha qaar waa lagu soo dhaweyn doonaa xafiis walba tagta teamka HR-ka ee jooga isku day in aad la hadasho oo markaa la sheekaysato nambaradooda ka soo qoro isku day markaa isbuuc kadib ama 10 cisho kadib mar walba inaad la hadasho aad update gareyso macquul ma marka koowaad tagtiin ugu dhaqaale shaqo inoo banaan hor ka gal laakiin tan waxay keenaysaa marka in shirkadahaasi markaad u tagto ilaa 50-60 shirkad in qaar kamid ah marka dib ay kula soo hadlaan marka qaybtan waxa weeye networking qasab ah in aad shirkadaha booqato oo marka aad isbarto CV ka soo qorato aan dhahay nambaradooda WhatsApp ka soo qorato kadibna marka mobilkaaga ay kugu jiraan oo marka hadhow hadii aad mararka qaar chance la hadli kartaa dhig karto waxa update ma haysan shaqooyin cusub ma soo bixin marka challenge-kan waxa isleeyahay kan ugu adag waxa laga yaabaa qarash yar inuu kaaga baahdo waa inaad ismaal gelisaa transportation-ka iyo qarashka waraaqaha ku soo daawacanaysid waa in marka adigu aad soo raadaysaa meesha ka keen lahaydba waana qaybta ugu muhiimsan ee challenge-keena 30 maalmood soconaya soo kale challenge-gan ee sharciyada uu leeyahay ama qodobka saddexaad waxa weeye in aadan dayicin sidoo kale aanad yasin shaqo walba ama fursad walba aad hesho okay muhiimadu waxa ay qofka in uu shaqeeyo hadii adigu aqoon leedahay karti leedahay laga yaabaa marka meel hoose ka bilowdo in aad kor u socoto laakiin hadiidin shaqadu waxay leedahay albaab laga soo galo soo albaabka marka uu waraysaa gasho waxay ku xiran tahay kartidaada dadaalkaaga aqoontaada iyo sida dadka aad u dhex gasho inaad horumar sii sameyso waxa laga yaabaa dad shirkadaha qaarkood meelaha ugu hoose ka bilaabo maanta inay maamulo iyo shirkadda meelaha ugu sareeya gaareen hadii laakiin aad shaqada ayasto waxay imaan doontaa inaadan experience helin because shaqada marka aad ku jirto noocay ahaataba waxa dhigi kartaa shirkad hebel baa intaas soo ka shaqeynay marka way dhaantaa inta dhig lahayd 2 sano guriga iska fadhiyay waxa lagu
dulqaat inaad tiraa shirkad hebel baan kasoo shaqeynaya intaa so experience-kan uu ku dhaafayaa lacag kusoo gelileedna ku dhaafaysaa sidoo kale waxyaabaha keena qofka hadduu jaamacad ka baxo uu shaqo intuu yeesoo gurigiisa iska fadhiyo waxay iman doonto qofka markaa dhow inuu depression ku dhaco oo nolosha markaa uu ka dhaco isdhooniyo shaqo la-aan baa ku haysa waxbarashadaadii waa ku khasaartay marka wax kasta oo shaqo ah oo kaa hor yimaada 30 maalmood isku day inaad qabato hana ku qancin shaqada inaad hayso ayada isla shaqada haddii businesska uu leeyahay meel hore lagu sii socon karo isku day inaad hore u socoto sidoo kalena magaalada inta ku jirto raadi waxyaabo kale ama jaanis kale tan ka fiican ha ku qancin shaqada inaad weligaaba dhex fadhin doonto marka qodobkeena saddexaad ee challenge-kan waxa weeye in aanad yasin oo aad shaqo kasta oo qaban karto haddii tahay shaqo nadaafad haddii tahay waiternimo haddii anything ay tahay shaqada qabo way dhaantaa adigoo shahaadaystina guriga iska dhex fadhido qodobka afraad ee challenge-kan waxa weeye isagana in aad ka faa'iideysato ehelkaaga qaraabadaada tolkaaga asxaabtaada iyo dadka aad taqaano waxaa la yiraahdaa qofka networking-ka ama dadka kugu xiran ee aad taqaano waxay ka muhiimsan yihiin aqoontaada iyo shahaadadaada marka koowaad waxaa laga yaabaa iminka qof master haysto 2 master oo Hindi ama China ka yimid oo guriga iska fadhiyo waxaan aan qaban waxa laga qofka in uunan haysanin ama dad uunan aqoonin ama uu iskala weyn yahay inuu family-kiisa ama dadka uu yaqaan inuu wax weydiisto marka networking fiican samee ka bilow asxaabtaada abtiga ka bilow adeerka ka bilow habarta ka bilow qofkii aad taqaanid family-kiina ah ee marka business leh ayaga ka bilow sababtoo ah waxa iman doonto dadka in position fudud ay ku bilaabaan ama boss yar oo wax ka bilaabi karto lugta la gasho oo marka hada hor u socoto aan ma ku dhahay isku halay dadka oo nepotism-ka wax loo ma fiicno qofka inuu family-kiisa mar walba isku halayo uu boss-kan u haysto xataa uu dareemo in laga qaadi karin waxas ma qurux badna laakiin isku day networking-ka waxa ka bilaabi kartaa meelaha aad garanayso dadka qaarkood xataa ayagoo shaqo ku haynin baa laga yaabaa dad kale inay kugu xiraan waxa laga yaabaa adeerka inuu saaxiib leeyahay nin shirkad haysto oo marka uu kugu sii xiro marka networking-ka inta dhow dadka kugu xiran ee family-kaaga asxaabtaada qofkii aad taqaano ka bilaabo oo isku day marka qofkii business haystina tiraan kula shaqeeyo bilaashan kugu shaqeeyo xitaa qofkii qof kale kugu xiri kara xataa inuu jaranjar ku noqdo qofka kale kugu sii xiro oo networking-ka aad ka bilowdo ehelkaaga iyo dadka kugu dhow qodobkan shanaad ee challenge-keena idin la wadaagay isagana waxa weeye in aad kordhiso ama aad kobciso network-gaaga isku day dad badan inaad barato inaad expo-yada meelaha ka isugu yimaadaan ka qayb gasho hadda magaalada waxaa laga yaabaa in sanadkii dhowr expo ay dhacaan mid shaqaalaha expo shaqooyinka mid book fair baa jira mid waxaa jira dadka engineerada isugu yimaadaan mid caafimaadka meelahaas oo dhan tag iska labiso dhexgal dadka salaam iska dhignin meesha jooga oo ku dhex jira dadka ugu firfircoon dadka qasab isku barkaas dadka meesha imaanaya waxay u yimaadeen ay laftirkooda networking inay sameeyaan ama businesskooda inay kor u qaadaan marka nambarada ka qoro noqo qof passive ah oo dadka asaga wax ku bilaaba ha noqon mid meel iska fadhiya wax uun dhageysta marka dhaqdhaqaaqa sameey oo waxaa la yiraahdaa qofka dad waxaa jira la dhaho dad waxaa jira afka xooglayaal oo ayagoona waxba aqoon waxa laga qofka inuu meel kasta galo oo adiga aqoonta laha uu ka hormaro uu shaqo helo marka taas waxay keenaysaa qofkaasi isaga wixii isku dayay oo talaabadii qaaday ma jirto wax inta soo baxan afka ku galay waxa laga doonayaa wixii inaad raadiso dadka dhex gasho indhaha shadato marka xiriirkaaga kobci shirkad walba waa inaad nambar ka haysaa waa in telefoonkaaga dii hormuud lagu qor maanta ay soo baxaan 20 qof hormuud ka shaqeysa dahabshiil hadii lagu qoro badan inay ka soo baxaan waa in dadka garanaysaa hadhow waxa laga yaabaa dadka qaarkood xataa marka u tagtay inay ku soo dhaweeyaan gartaa oo hebel way hadda kor waxaan ku kulanay meel hebel technique kale waxaa jira oo ninaan saaxiibanaha ku arkay markuu meelahaas oo kale tago qofkii magac leh ama wuxuu arkay qof marketing oo shirkad weyn ka shaqo sawir la galay qofka waxa laga yaabaa inuu ku ilaabo maalin kadib ama bil kadib sanad kadib meel isku arkaysin sawirkii wala soo baxay xaalada hadda kor aan kulan waa kana ninkan waan garanay sawir baan isla galnay marka waxay ka mid tahay waxyaabaha keena qofka dadka inay isbartaan dadka isbar dhexgal inta adigu waa bilow tahay jaamacad baa ka qalin jabisay imika soo bartay cid ku taqaana ma laha la doonaya dadka inaad isbarto dhex gasho oo xoog aad isku barto haddii shaqo aanad helin hadhowna markaa dadka aad ku dadaasho qaabkii aad shaqada uga soo saari lahayd haddii aan soo koobno hadalkeenu wuxuu noqonayaa isku day inaad qabato wax kasta oo shaqo ah hayasin shaqada noqoto tii aanad aqoonin baro haddii aad barato karto xirfadeeda albaab walbana garaac qof kasta oo wax ku qaban karo u tag ha iska fadhin gurigaaga inta guriga iska fadhin lahayd ama meelaha ka sheekeyn lahayd meel kasto gal waa in shaqo raadintu marka hay'adda shaqo ay ku noqotaa oo aad maanta dhan aad orataa oo qof walba wax ku tuhmaysa u tagtaa
hayasan shaqo kasta qabo haddii mushaharkeedu yaryahay qabo hadhow way ku kordhi doontaa haddii ay tahay shaqo adag oo markaa as leedahay waad ku daalaysaa qabo hayasin sidoo kalena qodobka ugu dambeeya kusoo koobi doono waxaa weeye dadka baro oo dadka dhexgal networking fiican samee si markaa dad badan oo markaa hadhow wax ka heli kartaa u barato markasta oo qof cusub aa baratan waxun baa ka faa'iideysaa waxaan rajaynayaa muuqaalka wax badan ka faa'iidaysatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.